بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وعبدسلام محمد عيسى سلوى وحانا هيكدومي كحجينكا أرمها أكاديمية جامعة بارقة أفريقيا xaruntu tahay Boosaaso Soomaaliya xaruntu Boosaaso tahay jaamacadda bariga Afrika waxay ka kooban tahay 7 qaybood 7 farac xarunta marka lagu daro waa Qardho Garowe Gaalkacyo Galdogob Boohoodle iyo Cergaabo alxamdulillah ويانا أفر كل أرضي إلى عشان كبرجت مرك وحنا كمان أنا كهالو وأن كجواب السؤال حالة الصب عذر كان ما أنت فيري أو فافي أو ليها كورونا فيروس أما كوفيد سهالة تولي هذا يالها وجيشت وحبرشة حق حن وحني وحفي عمبه أنا تسكت جوابيها runtii anagu jaamacadahan iyo jaamacadaha Soomaaliya iyo waxbarashada dhan aad bay u saameysay arinta iyada ah waxaana keenay in la joojiyay ama la hakiyay kulankii ay ardadu kulmaysay iyo macallimiinta marka sababtoo ah waxa taas ugu wacan de kulankaas oo la yiri hadii la kulmo waxa bilaabanaysa cudurkii inuu fido marka si cudurku u fidin wasaaradda tacliinta iyo hidaha tacliinta waxbarashada ee Puntland wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland iyo madaxtooyada Puntland iyo kasii koreysay meesha la yiraahdo muxuu ahaa xukuumadda federaalka Muqdisho go'aan ahaan waxa la gaaray arinta talaabo in laga qaado lana joojiyo la hakiyo waqtiyo cayiman xagga waxbarashada ee kulanka oo foolka marka amarka la baxshay waxay ahayd wixii 12 loo gaaray April in la hakiyo oo 2 usbuuc loogu daro oo hadda la joogo oo bishii muxuu ahaa dhamaadka muxuu ahaa May ay tahay maanta muxuu ahaa waxay joogtaa wali arinta inay socoto shalay oo maanta shalay ahayd wasaaradda tacliinta waxay soo saartay amar kale leeyahay ilaa June waqti dambe oo wali June taas waxay uga jeedaan dugsiyada sare iyo kala fasalada sideedaad sidii markaan imtixaanka laga qaaday goorta laga qaaday arinta iyada ah ayaa markaan laga hadliyay wahagaag maxay ku yeelatay way waxay ku keentay in la hakiyo kafool marka hakinta kafool maxaa lagu xaliyay oo xal loo helay si marka halka loo helo oo duruusta u socoto waxa la galay marka systemkan online la yiraahdo oo ah in la isticmaalo internetka oo systemka online internetka la isticmaalo oo ardayga iyo macallinkii inay ku kulmaan online oo macallinka duruustii ku baxsho online iyo idoo lagu daray imtixaamada laftigoodii in laga qaado imtixaankii iyo waxyaabaha ardayga la siinayo hawsha loo qabanayo oo guriga la yiraahdo ama assignment-ga online loo isticmaalo horta taas ah bilaabatay taa marka maadaama ay bilaabatay waxay horta ahayd wax kadis ah oo jaamacadaha Soomaaliya oo idilsay u leeyihiin waxay ku noqotay arrin kadis ah sababtoo ah wax la filayay ama sugaya ma ahayn dhinaca kale marka laga eegana waxa jirta oo xusuus badan in la xusuusiyo mudan arrinta ku saabsan maxaa macnaha diyaar garowgii iyo tababarkii wax kadis ah oo hore aan loo aqoon ama aqoon waa jirtay oo systemkan online la isticmaala waa jirtay laakiin inaga Soomaaliya hadii aad baan isticmaali jirin jaamacado dhifa oo anagu aan ka midnahay ayaa waxa jirtay macallin jooga Malaysia banaanagu midal ahaan duruus baxsha macallimiin jooga Muqdisho baa jira duruus baxsha macallimiin waxa jira Hargeysa jooga oo duruus baxsha oo online ah oo halka TV la tuso ma ardadu walba u badan qaybta caafimaadka laakiin ma ahayn wax saa u socdo oo joogta xoog badan ma ahayn marka si halka loo xallo baa waxa gashay in la xistaago annaga hadda matal ka soo qaado jaamacadda bariga Afrika jaamacadda bay saameysay waxaanu isticmaalnay systemkan horta systemkan markii loo fiirsho magacahan waxa la yiraahdaa Moodle baa loo yaqaanaa Moodle maxay ka joogtaa kelmadda Englishka waxa weeye modulated object oriented dynamic learning baa la yiraahdaa marka Moodle-ka learning environment baa loo yaqaanaa marka Moodle-kaas waa maxay waa hab lagu fulinayo waxbarashadii online marka taa iyada ah runtii su'aal ahaan hadii la isweydiiyo maxaa muxuu ahaa saa u dhacday hadii la yiraahdo ama loo fiirsho ma dhici karti anigu qof ahaan taariikhda markan dib idinku xusuusiyo
labada isaashankii waan macallin noqday oo ku noqday ICT-ga waddanka Ingiriiska London dhowr iyo toban sano markaan waday markii dambe waxaan u wareegay jaamacadda inaan macallin ka noqdo waxna ka barto oo PhD sameeyo arinta marka su'aasha ah suurtagal ma tahay in la sameeyo online oo loo adeegsado online ma dhici kartaa hadii la oran lahaa waxaan oran kari lahaa maya su'aashaas muhiim ah haddii intaasoo sano aan ku jiray haddii la oran lahaa berigaas macquul ma tahay in Soomaaliya iskuuladooda jaamacadahooda in la isticmaalo waxaan oran lahaa maya sababtuna waxay tahay waa wax kaliya oo la isticmaal karin anigu marka inaan maya iraahdo maanta aan la yaabanahay inaan ku guuleysano anagu jaamacadahan bariga Afrika si fiican oo xoog leh aan ugu guuleysanay imtixaamadii oo dhan waxaan ku qaadnay online duruustii online baan bixinay marka haddaan kalmad ku daro maxaa raaciyo oo ah maxaa ugu wacan waxa way laba sabab way anu barigaas hore aan hadii la wadiiyay hore la wadiin lahaa oo aan oran lahaa maya waxay laba qodob anigu marka aan si ii dhaaftay ama aan xusan waa maxay waa qodobka hore macallimiintayada oo hadda jaamacadaha dhiga ama Soomaaliya dhan waxay u badan yihiin 30 jir way ilaa 40 jir macnaha daadoodaas waxay keentay marka 20 sano ugu dambeysay inay ku dhex jiraan round cusub oo ah IT-ga inay ku dhex jiraan ama isticmaalka waxa sheegaya gaar ahaan waliba mobile systemka WhatsApp-kii social media kale iyo muxuu ahaa telephone system wixii ku jiraan marka waa u fududaatay in ay la qabsadaan systemkan online ka ah qolada labaad waxa weeye ardayda laftigoodii oo 20 jir ah waxa weeye ardaydu waxay u baahan tahay 20 jir 30 ka yar adigu waa markii loo gaaro 20 ilaa 36 weeye marka maadaama ay intaas tahay ardadii daadoodu ahayd waxay ku dhasheen waqtigii ahaa isticmaalkan ICT-ga oo la isticmaalayo oo social media oo ICT way markii la isku wadaro marka taas aan gafay oo aan isiri macquul ma aan garanayn marka ma aan qiyaasin hadii su'aasha la weydiiyay aan oran lahaa maya mid saddexaad baan ku darayaa oo arrin cajiib ah anagu waxaan leenahay jaamacadda bariga Afrika ka soo qaad macna halka aan la marayo waxaan leenahay macallimiin da'weyn oo dhowr iyo 40 sano dhowr iyo 50 sano macallin lahaa oo ahaa macallimiintii la foolay adigu ilaa 10 nala joogta waxa cajiib ah macallimiinta iyada ah inay la qabsadeen inay isticmaalaan online oo maalmaha kamid ah muxuu ahaa ciidanka iyaga oo ICT-ga maamula oo faraxsan baan la kulmay markaas maxaa dhacay markaas yiraahdeen macallimiintii daweyneed oo dhowr 87 jirka ahayd inay la qabsadeen kalmad bay baxsheen oo la BBC kalmadan BBC kaftar ahaan marka laga soo tago waxay ka joogtaa born before computer macallimiintii born before computer ahayd baa waxay awood u yeesheen inay isticmaalaan waxay anagu waxaan joognaa aflax iyo guul mar hadii aanu gaarnay macallimiinteedii BBC inay guuleystaan marka waa soo koobaya runtii waa guul Soomaalidu dhanbe u tahay waxyaabaha kale markii su'aasha kale lagu lifaaq waxa weeye faa'iido kale soo socota waxaan u awoodi doonaa barnaamijyo badan oo insha Allah anagu jaamacadaha bariga Afrika laga soo qaado aan hubaa jaamacadaha kale isticmaal doonaan hay'ado kale iyo institutions kale isticmaal doonaan in tababarada aan xoojino xilliyada iskuulada xiran yihiin ama jaamacaduhu xiran yihiin inaan duruus ku bixino online internet ku bixino sida maadooyinka yaryar oo diblomooyinka iyo maadooyinka muxuu ahaa certificate-ka marka runtii Soomaaliya oo dhan waxay u tahay guul adduunyada dhan bay adeega isticmaashay anagu guul bay noo tahay kulligeen jaamacadda bariga Afrika alxamdulillah guul aad weyn baan ku gaarnay inaanu isticmaalno systemka isaga ah oo anagu waxaanu ka midnahay jaamacad ahaan waxaanu ka midnahay ururka Somali REN oo waxay ka joogtaa Somali Research muxuu ahaa network ayay ka joogtaa muxuu ahaa Somali REN waxa weeye association network marka Somali REN waxay noo fududeysay in aan la yeelano system anagu waxbaridda aan ku gudbino oo VC ah waa virtual conference system la yiraahdo aan iskuul ahaan waxbarashada oo isticmaalo qolooyin kale oo caalamka oo waliba Soomaaliya u badan waxay aad u isticmaaleen Zoom oo aad looga yaqaan oo Zoom baa aad loo isticmaalaa marka arinta iyada ah waxay fududeysay inaanu adeegsano systemka caalamka alxamdulillah guul baan joognaa marka waxaan ku boorinayaa jaamacadaha iyo waxbarashada in ay halka istaagin oo ay ka faa'iideystaan inay isticmaalaan teknolojiyada
oo waliba macallimiinta laftigoodii waxaan waani tala ahaan iskuulada jaamacadaha ku talinaynaa inay xoojiyaan dadka aan soo haleeli karin ama gaari karin inay xarumaha yimaadaan ama jaamacadaha ama iskuulada ama kollejyada yimaadaan iyagoo jooga guryahooda iyagoo degmadooda jooga iyagoo tuulooyin aad fog jooga waxa kaliya cilada marka nagu dhacay oo runtii anagu Puntland ahaan iyo muxuu aan joognay qaybaha kale Soomaaliya ah waxa ahayd xagga isku xirka internetka oo anagu waxaan isticmaalnaa golis waxa kale oo la isticmaalaa qolooyinka aan isticmaalno oo golis baa u badan runtii waqtiyada qaarkood systemku gaabanayay oo ardada markaarku markay imtixaanada ku jiraan duruus qaadan marmar baa ciladu ku dareemiyay ka dhacis laakiin waqtiyadii marka imtixaanku soo gaarnay waxaan la hadalay golis waxay sameeyeen inay ardadii siiyaan fursad ka badan ka xoog badan systemka isticmaalaya alxamdulillah halkaas ku soo koobaya waxaan rajaynayaa waa guul ilaahayna siiyay in maanta aan barano system cusub oo aan u adeegsano internetka oo marka aan u adeegsano waxbarashada gudbino alxamdulillah systemka laftigiisa wuxuu keenayaa in la xoojiyo oo wixii marka ka badan muxuu ahaa saayida soo gaara waxbarashada gudubto alxamdulillah goobihii dadku muxuu ardayda ahaa oo wax doonaya ama dadka waliba da'doodu xoogaa dhaaftay waxbarashada fursad waxay helayaan ka saa'idsan sida la filayo iyagoo marka meel kasta jooga iyagoo caluula jooga iyagoo kismaayo jooga iyagoo berbere jooga ama ay tuulooyin yar iyagoo jooga oo ay haleeli karaan maanta in waxbarashadu ay gudbiyaan waayo dad waxaa jira beeraley ah dad waxaa jira muxuu xoolo dhaqato ah inkastoo deebiirmiyi aan ahayn laakiin tuulooyinka jooga dad waxaa jira tuulooyinka jooga dad waxaa jira xanuunsan oo meel fog jooga dad waxaa jira ama ayl ama matqalan joogo aan haleeli karin inay yimaadaan xarumaha jaamacadaha iskuulada halkaas wax lagu bar karaa anaga qorshaha aan wadna taas ka mid tahay alxamdulillah halkaas aan ku soo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته